wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa taageertay qoraal ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika oo si xooggan loogu cambaareeyay muddo kororsiga labada sano ee ay sameeyeen farmaajo iyo golaha shacabku. Qoraal ka soo baxay xafiiska arrimaha Afrika ee waaxda arrimaha dibadda ayaa lagu yiri waxaan taageersanahay go'aanka golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika ee cambaareynaya muddo kororsiga uu toddobaadkii tegay meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan soo dhaweynaynaa dhexdhexaadinta midowga Afrika waxaana ugu baaqaynaa hogaamiyayaasha Soomaalida inay isku raacaan waddo horay loogu socdo si degdeg ahna loogu xalliyo qalalaasaha doorashada. Warmurtiyeedka xalay ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee lagu cambaareeyay muddo kororsiga ayaa lagu sheegay in go'aankaas uu dib u dhigayo doorashooyinka Soomaaliya isla markaana uu waxyeeleynayo midnimada iyo xasiloonida Soomaaliya iyo hanaankii lagama maarmaanka ahaa ee dimuqraadiyadda iyo dastuurka. Qoraalka golaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in uu rumaysan yahay in heshiiskii 17 Sebtembar ee 2021 uu yahay saldhigga iyo habka ugu wanaagsan ee lagu qaban karo doorasho xilligeeda ku dhacda. Go'aanka golaha ayaa dhabarjab weyn ku noqday farmaajo iyada oo ururka midowga Afrika uu ahaa ururka kaliya ee u harsanaa beesha caalamka. Horay muddo kororsiga waxa uu diiday qaramada midoobay, midowga Yurub, Mareykanka iyo dhammaan dalalka Yurub. Dowladda Soomaaliya ayaa wali ka jawaabin go'aanka midowga Afrika, hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay inuu albaabkii u dambeeyay ka soo xidhmay farmaajo marka loo eegayo arrinta muddo kororsiga.